Nabadda wadayaal meel kastoo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warbixin iyo falanqayn aynu ku eegayno doorka warbaahinta caalamiga ah uga hadlaan xaaladda Somaliland iyo isbedelada ka socda badda cas iyo marinka gacanka cadmeed. Warbaahinta caalamiga ah ee lagu magacaabo Atlas ayaa daabacday warbixin falanqayn ah oo dood ka dhalisay Geeska Afrika taas oo ku doodaysa in isbedelada ka socda badda cas iyo gacanka cadmeed ay sare u qaadeen muhiimadda istiraatiijiga ee Somaliland iyo Itoobiya. Warbixintu waxay sheegaysaa in haddii xiisadaha gobolku ay sii socdaan, Berbera iyo xeebaha Somaliland ay noqon karaan kuwo ka sii muhiimsan xilligani, gaar ahaan dhinaca amniga marinada ganacsiga caalamiga ah. Sidaa daraaddeed, waxa ay ku doodaysaa in iskaashiga u dhexeeya Itoobiya iyo Somaliland aanu ahayn oo keliya arrin laba geesood ah, balse uu si toos ah ula xidhiidho danaha Maraykanka iyo xasilloonida badda cas. Laakiin su'aasha ugu weyn ayaa ah Somaliland ma isku beddelaysaa xudunta cusub ee loolanka quwadaha waaweyn ee dunida? Haddaba aynu eegno qodobada ugu waaweyn ee warbixintani. Warbaahinta caalamiga ah ee Atlas oo fadhigeedu yahay magaalada Madrid ee dalka Spain ayaa daabacday warbixin falanqayn ah oo si weyn uga hadlaysa isbedelada juqraafi siyaasadeed ee Geeska Afrika. Warbixintu waxa ay ku doodaysaa in xiisadaha sii kordhaya ee badda cas iyo gacanka cadmeed ay sare u qaadeen muhiimadda juqraafiyeed iyo istiraatiijiyadeed ee Somaliland iyo Itoobiya, iyadoo labada dhinac lagu tilmaamay inay yeelan karaan door muhiim ah oo ku saabsan amniga marinada ganacsiga caalamiga ah. Warbixintu waxay sheegaysaa in haddii xaaladda amni ee gobolku ay sii adkaato, gaar ahaan Bab el Mandeb iyo badda cas, dekedda Berbera iyo xeebaha Somaliland ay noqon karaan goobo sii kordhaya muhiimadooda dhinaca ganacsiga iyo amniga. Sida lagu sheegay warbixinta, iskaashiga u dhexeeya Itoobiya iyo Somaliland ma aha oo keliya arrin laba geesood ah, balse wuxuu la xidhiidhi karaa danaha istiraatiijiga ee Maraykanka iyo xasilloonida marinada muhiimka ah ee badda cas. Warbixintu waxa ay sidoo kale tilmaamaysaa in Geeska Afrika uu wajahayo isbedello waaweyn, iyadoo xiisadaha ka taagan marinka Hormuz ay sare u qaadeen muhiimadda marinka Bab el Mandeb oo ka mid ah waddooyinka ugu mashquulka badan ee ganacsiga dunida. Falanqeeyuhu waxa uu ku doodayaa in Itoobiya, inkasta oo ay tahay dal aan bad lahayn, ay weli tahay awoodda ugu weyn ee siyaasadeed, dhaqaale iyo ciidan ee Geeska Afrika, isla markaana ay sii xoojinayso doorkeeda iyadoo loo arko saaxiib istiraatiiji ah oo muhiim u ah Maraykanka. Warbixintu waxa ay sidoo kale sheegaysaa in Itoobiya muddo dheer door weyn ka ciyaartay la dagaalanka kooxaha hubeysan sida Al-Shabaab, isla markaana ay ka qayb qaadatay hawlgallada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay ee dalkaasi Soomaaliya. Dhanka kale, warbixintu waxa ay ka digaysaa khataraha amni ee ka imanaya badda cas, iyadoo xustay in eedeymo la xidhiidha hub la sheegay in loo gudbiyo Xuutiyiinta Yemen. Falanqeeyuhu waxa uu sheegay in eedeymahani ay muujinayaan caqabado cusub oo amni, inkastoo aan si madax bannaan loo xaqiijinin. Warbaahinta Atlas ee ka soo baxda dalka Spain waxa ay sidoo kale falanqaysay tartanka u dhexeeya Itoobiya iyo Masar, iyadoona sheegaysa in Qaahira ay sii xoojisay iskaashigeeda Eritrea iyo dowladda Soomaaliya kadib heshiiskii is-afgarad ee Itoobiya iyo Somaliland ee sanadkii 2024. Falanqeeyuhu waxa uu ku doodayaa in Itoobiya ay dooratay istiraatiijiyad ku salaysan iskaashi muddo dheer ah oo ay la yeelato Maraykanka iyo Israel, halka Somaliland lagu tilmaamay lamaane muhiim ah oo Itoobiya u horseedi kara marin ammaan ah oo ay ku gaadho badda cas. Warbixintu waxa ay ku soo gabagabaynaysaa in haddii Maraykanku uu doonayo inuu ilaaliyo xorriyadda isu socodka maraakiibta ee badda cas iyo marinada ganacsiga caalamiga ah, ay tahay in sii xoojiyo iskaashiga uu la leeyahay Itoobiya. Sidoo kale waxa ay ku doodaysaa in iskaashiga Itoobiya iyo Somaliland uu noqon karo mid door muhiim ah ka qaata xasilloonida Geeska Afrika. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la xuso in warbixintani ay tahay aragti ama falanqayn lagu daabacay warbaahinta Atlas. Qaar ka mid ah qiimeynta iyo gunaanadka ku jira waxa ay ka turjumayaan aragtida warbaahinta lagu daabacay, mana aha dhammaantood xaqiiqooyin si madax bannaan loo xaqiijiyay. Ayaynu kusoo gabagabaynaynaa warbixintani aynu ku eegayna bal isbedelada ka socda gobolka iyo saameynta ay ku leedahay badda cas iyo gacanka cadmeed iyo doorka Somaliland iyo Itoobiya.